qaar ka mid ah dadka baraha bulshada caanka ka ah kuwooda markaasi aadka uga agdhow habi xilwa ayaa dhambaalo kala duwan oo ducaa iyo sidoo kale bogaadin hawada u marinaya habi taniyo markii uu soo shacbaxay xiriirka iyada iyo sidoo kale cabdifataax oo fanaan daayar oo islamarkaana ku nool dalka sweden dhowaanahanba waxa uu ku sugnaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyeed halkaasi uu ka goobaye gabadhii uu isagu markaasi guursan lahaa ee mustaqbalkiisa noqon lahayd sidoo kalena jacaylkiisa uu noqon lahayd ugu dambeynna waxaa dibadda yimid xiriirka iyo sidoo kale haasaabaha iyo isu soo dhawaashaha dhex maray habi iyo sidoo kale cabdifataax inkasta oo arrintan ay ahayd mid dhinacyo badan aynu ka egnay marar badan waxaanu qiimeyneynaa fariimaha ay dirayaan qaar ka mid a dadka caanka ah sida boqorada isteelka sidoo kale jamaal dayax iyo qaar kale oo badan kuwaasi oo aada markaasi ugu bogaadiyey sidoo kalena tahniyado hawada u mariyey habi xilwa iyo cabdifataax inkasta oo lamaanahan qorshahoodu uu ahaa inay ismehersadaan ayaa taasi suurageli weyday kadib markii cabdifataax oo tigidkiisu wakhtiga aada u koobnaa awgeed baajin waayey safarkiisii islamarkaana wacad ku maray in marka uu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho amaba isagoo ku sugan dalkaasi sweden inuu doonayo in habi xilwa ay noqoto marwadiisa xalaasha xaaskiisa haddaba habi oo marar badan wax laga weydiiyey xiriirkan cusub inkastoo ay jireen dhalinyaro badan oo iyadu ku lamaanaa ayaa waxa ay sheegtay inkastoo aysan si waadixa oga hadlin waxay si dadban u sheegtay inuu jiro xidhiirkan iyo sidoo kale qorshaheeda dhanka guurka waxaana marar badan wax laga weydiiyey cabdifataax iyada waxa ka dhexeeyo tani intii uu soo afjarmay xiriirkii jacayl ee kala dhexeeyey cabdulaahi kashka habi xilwa ayaa ugu dambeyn waxa ay hoosta ka xariiqday in ay yihiin laba qof oo lamaana ah islamar ahaantana qorsheynaya inay aqalgalaan oo guri ay yagleelaan haddaba dhambaallo aada u tiro badan oo social mediaha lasoo dhigay ayaa laga dheehan karaya xiriirka qarsoon ee habi xilwa iyo sidoo kale cabdifataax albakri haddaba labada dhinacba aaladaha ay isticmaalaan lamaanahan ayaa waxaa dhowaanahanba lagu arkaya sawiro iyo sidoo kale dhambaallo kala duwan ama qoraallo kooban kuwaasi oo intooda badan ay u muuqatay inay ku muujinayaan kalgacal iyo sidoo kale sida ay isu daneynayaan habi xilwa oo iyadu ah gabar da-yar islamarkaana tiktokarad ah ayaa iyadu muddooyinka ugu dambeeyey lala xidhiidhinayay inankan lagu magacaabo cabdifataax inkasta oo dhanka kale ay jirtay hinaaso iyo sidoo kale maseer kaga imaanaye qaar ka mid a dadka ay xidhiirhka horey u lahaayeen oo dhallinyaro soomaaliyeed oo iyaguna intooda badan reer muqdisho ah tiktokana ay saaxiib ka ahayeen waxna ay isla jili jireen muuqaalo kala duwanna ay kasoo wada muuqan jireen haddaba waxaa jirtay dhacdo ka dhacday muqdisho oo u dhexeysay isqabqabsiga xagga lamaanaha gaar ahaana cabdulaahi kashka iyo sidoo kale cabdifataax war badan ayaan idinku daalinaynin arrintaasi oo aan filayo in aad kasoo bogateen muuqaalo horena aan kaga hadalnay waxaa iminka aada u taagnaa dhacdooyinka ee la xidhiira sheekada iyo hasaabaha iyo sidoo kale qorshaha guurka ee habi xilwa iyo sidoo kale cabdifataax haddaba inkasta oo dhinacyadan kala gedsan ay jireen fariimo ay dirayeen waxaa dhanka kale baaq u diraya habi qaar ka mid ah dadka taageerada u ah iyo dadka aadka uga agdhowiyada kuwaasoo intooda badan ku buurinaya in aysan dheg jalaq u siin nacabka iyo dadka ku howlan sidii ay nafsadeeda ay markaasi dhibaato ugu soo jeedi lahaayeen sidoo kalena dagaal xagga xiriirka ay iyagu u sababi lahaayeen haddaba cabdifataax oo isna dalkaasi sweden ka yimid ayaa waxaa dhowaanahanba qorshihiisa ugu weyn uu ahaa baadigoob ugu jiray sidii uu u heli lahaa qofta mustaqbalkiisa noqonaysa islamarkaana uu guursanayo ugu dambeyn doonayana in uu guri la yeegleelo mehersado waxaana habi ay muujinaysay sida ay ugu riyaaqday xidhiirka usoo bandhigtay cabdifataax islamarkaana ay uga aqbashay iyadoo dhanka kalena tilmaamaysay in cabdifataax ay tilmaamayso inay u muujinayso jacaylkaasi mid la mid ah sidoo kalena ilaa xad ay doonayso in qorshahooda uu isu bedelo guur ama uu ku dambeeyo guur sida ay hadalka u dhigtay
haddaba dad badan oo ka warbixinayay cadaawadda dhex taalay iyada iyo sidoo kale dhalinyarada tiktok-ga ay wax iskala sameynayeen oo ay isla soo ceesheen, kuwaasoo intooda badanna muddooyinka ugu dambeeyey aysan ahayn dad aada isugu dhow sida horey looga bartaba, islamarkaana la qeexaya in khilaaf iyo sidoo kale waxoogaa dagaal iyo hinaasa u dhexeeyey. waxaana tani marar badan markaasi ay muujiyeen qaabka khilaafka uu ku yimid iyo waxaa sabab u ah, inkastoo Happy ay tilmaamaysay in dhammaanba dhalinyarada ay wax isla jilayeen, sidoo kalena ay isku xilli bilaabeen barta tiktok-ga, islamarkaana muuqaaladooduna halkaasi ay isla sameyn jireen si maalinlana ay ugu jirtay tiimka halkaasi ka dhisan oo intooda badanna soo gudbiya muuqaalada madadaalada iyo sidoo kale sheekooyinka xaraabada. ayaa haddana Happy waxa ay sheegtay in ay inta badan aaminsan tahay in xiriirka walaaltinimada uusan marnaba dhammaaneyn, isla markaana weligiisa jirayo. haddaba waynu ognahay xilliyada qaar isku dhacwa uu yimaadaa dhanka lamaanaha iyo dhalinyarada Soomaaliyeed, isgaadgaad iyo sidoo kale sheeko markaasi isu bedesha khilaaf aada markaasi u gaamura waqti badanna qaata. Happy ayaa waxaa markaasi la arkaya in ay iyadu jaceylkeeda cusub imika ay u tafaxiitanaysay iyo sida jaceylkaasi uu noqon lahaa mid markaasi iyada xaggeeda ka waara. waanu rajaynaynaa lamaanahaasi inay isu waaraan, sidoo kalena qorshahooda sida uu yahay ay u bedelaan kuna soo dhameeyaan sheekada guur iyo meher. ha yeeshee waxay ahayd arrin dhowaanahanba baraha bulshada aada u qabsatay, labada dhinacba dadkuna ay hayeen kuwo siyaabo kala duwan oga hadlayay, halka ay jireen kuwo kasoo horjeeday tilmaamayana in ay qalbiga ka dhaawacday qaar ka mid ah dhalinyaradii ay wax isla sameynayeen. ha noqoto qof ay ku habbooneed inay isguursadaan oo ay ismehersadaan, xiriirna u dhex maro ama xiriirkooda uu u dambeeyo guur, inkasta oo aan la kontarooli karin calafka. haddana dadka badankood waxay ka hadlayeen waxaa u dhexeeyey iyada iyo Cabdulaahi Kashka iyo arrintii muddooyinka ugu dambeeya taagneed ee khilaafka ahayd. Cabdulaahi oo isaguna la sheegaya in weli qalbigiisa uusan ka tirin Happy, islamarkaana xitaa ay jirtay xilli weerar uu ku qaaday Cabdifataax marka ay soo gaadhay wararka ay soo gaareen xogaha kala duwan ee la xidhiidha in Happy iyo sidoo kale Cabdifataax uu wax ka dhaxeeyo, dhowr marna lagu arkayay hayso ay kasoo wada muuqdeen iyo arooso kala duwan. muuqaalkan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa, tan iyo ismaqalkeena xigo waxaan idinkaga tegaynaa haddii aybuina raalli ka noqdo intaanu ka bixinna subscribe-ta waa codsi walaaltinimo. fadlan subscribe inoo saara, lagaree muuqaalka la wadaaga asxaabtiina. waxaanu idin rajaynaynaa in badan oo idinkeeda ka mid ah muuqaalkan uu gaari doono si waafiya. waxaana idin rajaynaynaa in aad la wadaagtaan asxaabtiina si dad badan aynu u hanano, dad badan ay nagu soo biraan.